alla naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa maanta munaasabad kubad ah oo lagu xusayo mujaahid maxamed biixi ooto lagu qabtay garoonka Hargeysa Stadium. Munaasabadan ayaa ku beegneyd maalintii uu geeriyooday mujaahidku, waxaana soo qaban qaabiyey munaasabadaasi murashax Mawlid Kayse Mawlid Qaro. waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu xusayo mujaahidka mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani uu hogaaminayo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga wadani, gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland, gudoomiyaha dhalinyarada Somaliland ee Soonyo, dhalinyaro, haween, murashaxiin iyo mujaahidiin ay halgankii ka soo wada qayb qaateen mujaahid ooto. runtii maanta waxaan ku suganahay garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium oo ay ka socoto ciyaar xus oo loo qabtay Ilaahay u naxariistay mujaahid ooto biixi caalin oo ka mid ahaa halgamayaashii dalka soo halgamay. runtii ciyaarta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo abaabulay xildhibaan Mawlid Kayse Maxamed Mawlid Kayse Mawlid Qaro oo runtii isagu munaasabadan quruxda badan soo qabanqaabiyey. ciyaartan dhex maraysa kooxda ilaalada xeebaha iyo waxbarashada runtii ciyaar aad qurux badan baa socota. waana sunno wanaagsan in dadkii dalkan u soo halgamay la xuso oo loo duceeyo. runtii maanta waa 10kii Ramadaan, waxay ku beegantay maalintii ooto geeriyooday mujaahid ooto. Ilaahay u naxariistaan leenahay dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xisbiyada qaranka, madaxda Soonyo, garsoorka kubadda cagta, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, xiriirka kubadda cagta Somaliland, yani sida fiican ay hawshan iyagu gudooda uga qayb qaateen waan uga mahadnaqanaa. taariikhdii mujaahidku 1963 ceelkan Hargeysa ku dhashay, dugsigiisii hoose iyo kii dhaxda Hargeysa ku qaatay, dugsigiisii sare oo 82 markay marayso wuxuu ahaa raggii dhagax tuurka bilaabay ee Hargeysa ka bilaabay ku ahaa. dhalinyaradii reer Hargeysa hormuud buu ka ahaa ee dhagax tuurka bilowday. dhamaadkii 82 ayuu mujaahid maxamed biixi caalin u tallaabay dhaqdhaqaaqa ururkii SNM, halkaasoo uu kaga qayb galay ururkii SNM horaantii 83kii. mujaahid maxamed biixi caalin wuxuu ka mid ahaa raggii lagu furay dugsigii Baabuli, tababarkii ugu horreeyay SNM la siiyo, dhalinyaradii ugu horreysay gasha ayuu ka mid ahaa. ka gadaal wuxuu ducfadiisii labaad ku qaatay Awaare. mujaahid maxamed biixi caalin dagaallo badan ayuu ka qayb galay oo aagga galbeed iyo aagga bariba ah. xaggan galbeedka dagaalkii Caran Carrey iyo dagaalkii Gumuraha iyo dagaalkii Beligubadle ee xilliga ay xanta dhigatay Defaqash. waa dawladdii Geeska Afrika ugu quwadda weyneyd, waa qaybtii 22aad waa soo labisan dirayska sanamta. dabadeedna waxaan ku wari oo gudaha intuu hub galiyay iyo rasaas iyo dad galiyay soo noqday oo diyaaradii Hargeysa rusheynaysa ay wadanka kala xidhatay. dabadeedna la leeyahay wariyaa gurmad ka qaadaya oo laga wada maagay oo ninka mujaahidka ooto biixi Ilaahay godka ha u nuuree uu waxaan ku gaarigii gundada u galay. gaari jeega soo ahaa waxa lahaa nin Maxamuud Xirsi la oran jiray gaariga oo xanuunsanaya isaga kaxeeyay. waxa weeye maalin laga maagay bay ahayd. waxaan mujaahidka ku xasuustaa anigoo aqoon hore u lahayn calool adeegiisa iyo raganimadiisa iyo geesinimadiisaba. maalintaas oo ninkii gaariga dadkii gawaadhida watay ee lahaa ay ka baqdeen inuu mujaahidkaas uu kaxeeyay. 2021 waxaa la xusayaa mujaahid ooto biixi caalin oo aan odhan karo wuxuu ahaa qof taariikh weyn ku leh dalkan halgankiisii iyo horumarkiisiiba. aniga ooto biixi qoys baanu ahayn. walaashay Hodan Caydiid Yaasiin ayaa taranteeda ay ka mid yihiin ilmo biixi caalin. qof aan family ahayn buu ahaa. Ilaahay ha u naxariisto marka hore, jannadii firdawsana ha ka waraabiyo. in mujaahid ooto iyo mujaahidiintii kale ee qarankan soo halgamay xusaskooda la badiyo oo la weyneeyo. jiritaankeena umadnimo ayay wanaajinaysaa oo ay qurxinaysaa dadka taariikhda qarankan quruxda badan leh u soo dhintay
naftooda iyo maalkooda noo soo huray waxa weeyaan taariikhda inay qorto. haddaan marxuumka in yar ka yar sheekeeyo marxuumka waxaan isku ahayn dhallinyaradii u tallaabday xilligii halganka early ayaan anagu gallay. marxuumku marka hore wuxuu ka soo jeeday qoys dhisan buu ka soo jeeday adduun haysta. xildhibaanku wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka tilmaamayd magaalada Hargeysa. xilligaa iyadoon gabadhiba la wadan jirin wuxuu wadan jiray gabadhada ugu xilligaa waddanka timaada ayuu wadan jiray. reer dhisan buu ahaa, nin gaajo ama busaarad ku tegay meesha mu ahayn. halgankana waxaanu ka wada qayb gallay early aidgii ayaanu ka qayb gallay 83kii. waxaanu ahay dhallinyaradii lagu bilaabay baanu ahay halganka. dadna markii dambe yimaadeen, dad iyadoo ay halganku uu taaba qaaday ayay yimaadeen. dhallinyaradii halganka lagu curiyay baanu ka mid ahayn annagu. annagii reer miyiga aan ugu tagnay miyiga waddada qaaxaya wixii ka sheeya. dadka inta dambe markii dambe soo tallaabeen. marxuumka waxaan wada gallay dugsigii tababarka ee Baabil baan wada gallay. ka soo wareegtay geeridiisii iyo maalintii uu dhintay oo Ilaahay uga baryayna horta marka hore inuu naxariisto oo uu dambi dhaafo. marka labaad waxaan u mahad celinayaa walaalkeen Mawliid Kayse oo isagu lahaa fikradda iyo qabashada koobkan maanta lagu xusaayo mujaahid Ooto Biixi Caalin oo xus weyna. waxaanu xasuusanaa 93gii markii halkan ku dhigista lagu sameeyay Ooto Biixi Caalin wuxuu ka mid ahaa 30kii gaari halkan la safay la taxay. maantana waxaynu inaguna halkan u fadhinaa inagoo nabad ku fadhinaa kalgacal iyo walaaltinimo ku fadhinaa oo waxa weey nabadgelyada iyo wanaagga ay ka mid ahaayeen dadkii halganka naftooda u huray. nin weyn oo reer Hargeysa ahaa, qiimo badan bulshada Soomaaliland u soo halgamay, tacab badan galiyay, xisbi ahaana buddhigii iyo aasaasiyaashii halgamayaashii xisbiga wadani ahaa. ayaan maanta xagan lagu xusayaa. waxaan uga mahadnaqaynaa cid walba ka qayb qaadatay oo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha, xiriirka kubadda cagta Soomaaliland, dalada dhallinyarada Soonyo Soomaaliland, walaalkii Mawliid Kayse oo ah musharax xildhibaan golaha deegaan, iyo walaalkay Tadhase oo ah xogaha dhallinyarada ciyaaraha. mar walba u heelan inuu dhallinyarada deegaan walba iyo goob walba joogaan la dareen noqdo nin ciyaartooy ah oo qiimo badan oo dhallinyarada iyo ciyaaraha si fiican u garanaya. waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ooto Biixi waa Ramadaan inuu u naxariisto u dambi dhaafo. lagu xusayo Allah u naxariistay mujaahid Ooto Biixi Caalin, qof sharaf badan ahaa, qof qiimo badan ahaa, qof dadkiisa jecel ahaa, qof dadku runtii isugu mid ahaayeen ahaa, qof mar kasta iyo goor kasta markaad la kulanto dadkiisa tusi jiray jacayl. waxaan xasuustaa maalmo aan Muqdisho wada joognay oo runtii siduu dadka ugu warhayay ma ilaawo weligii sidii uu mujaahidku ahaa, qof dadka isku haya, qof dadkiisa jecel. maanta wuu mudan yahay in la xuso dalkiisii uu soo dagaalamay ee uu xoreystay in lagu dhex xuso wuu qalmaa. taariikhdiisa Allah nooleeyo. xildhibaanka xasuustay maantana waxaan Ilaahay uga baryayaa ciyaarta uu ku xusay, waayo geesiyaasheena ma xasuusano ciyaarta uu maanta u qaban qaabiyay ee uu ku xasuustay in insha Allah ta'ala koobisidon kamay Ilaahay guul ku siiyo, guulaynu wada dabaal degno. dadkana waa u sharafin xildhibaano sidaas maaragtay kuwoodii dhintiyo kuwooda noolba u danaynaya in maaragtay ay u sharaxayeen maanta. dhallinyaradana markaa de waxaan ugu baaqayaa in walaalkay codka la siiyo, la doorto. annagu waanu isu dhahnaa gub baanu nahay, maanta Mawliidkiisaan u odhanaynaa. way Ramadaan tahay, runtii aad baan ugu faraxsanay inaan ka soo qayb galo duco loo sameynayo mujaahidkii weynaa Ooto Biixi oo runtii dadkii mujaahidiintii waddanka u soo halgamay. runtii maanta waxay nooga baahan yahay waa duco. waana ducaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu jannatul firdaws geeyo oo ah mujaahidiintii dalkan u soo halgamay oo insha Allah aanu xusayno una ducaynayno. xusid waxa weeyaan waa duco iyo in la yar ogaado ducada faataxada loo maro oo qofkii mujaahidka waddanka u soo halgamay la yar xusuusto waa muhiim. cid kasta oo soo qaabisay uu kow ka yahay Mawliid Kayse wanaad iyo asla mujaahid ah anu hambalyeelno. markii ay noo sheegeen xiriir ahaan aanu u abaabulay inaanu ciyaarahan u soo labada kooxood u diyaarino. wasaaraduna ay u diyaariso garoonkii. waa hawl laga wada qayb qaatay. markii xiga waxa mahad leh in xildhibaankii soo qaban qaabiyay barnaamijkan
lagu xusiyo aabbahay mujaahid maxamed biixi caalin run ahaantii abaal weyn baan uga haynaa haddoo nahay qoyska iyo dhammaan dadka kale ee ka soo qayb galay ee u ka mid yihiin guddoomiyihii soonyo iyo madaxdii kale xisbiga wadani iyo niman kale oo mujaahidiina dhammaantood aad baan ugu wada mahadnaqaynaa tan aan ugu talagalnay inaanu ku xusno ilaahay idamkiisa mujaahidkii weynaa maxamed biixi caalin run ahaantii haddaan soo koobo mujaahid maxamed biixi caalin runtii nin weyn oo mujaahid ah oo halgamaaya oo dalka ku weyn halgankiisii haddaad eegto iyo qofnimadiisiiba haddaad eegto xusid mudan oo tan iyo mid kaleba lagu xuso ayuu runtii u qalmaayay baan odhan karaa ilaahay idamkiisa maanta waxay ku beegnayd maalintii uu geeriyooday allah u naxariistee mujaahid maxamed biixi caalin run ahaantii maxamed biixi caalin nin kastoo de nin iga weyn aniga u ahaa haddana runtii nin aanu halganka ku kulannay wakhtigii halgankii hubaysnaa dalka lagu jiray oonu ka wada mid noqonnay ururkii xornimadoonka ee SNM ayuu ahaa runtii nin taariikhdi badan lahaa buu ahaa oo qaranka iyo dalka iyo dadkaba ku lahaa buu ahaa runtii nin aan lagu soo koobi karin maanta mid iyo laba kaga warranta taariikhdiisii ayuu ahaa runtii siduu sheegay dhamme raggii maalintii halkan hubkaanu u dhigaynay waxyaalaha lagu sii xasuusta dee raggiina abaabuley waaweynaa ee mujaahidiintaha inaannu hubka dhigno oo dalkaannu nabadayntiisa ka shaqayno ayuu kow ka ahaa maxamed biixi caalin allah u naxariiste runtii taariikhdiisa laguma soo koobi karo mid iyo laba rag badan oo kale oo iga horreeyeyna runtii way ka hadleen way soo sheegeen runtii maxamed biixi caalin waxaan odhan karaa wuxuu ahaa allah u naxariiste nin hadduu kuu maqan yahayna aad ku ledayso hadduu kugu maqan yahayna aanad ka ledayn buu gabagabadii waxaa munaasabadaasi ku soo idlaatay 2-1 oo ay guushuna ku raacday kooxda waxbarashada